Hey, salaam nabad waxaad korkiinaato maanta waa maalin aan aad iyo aad u qiimo badan waan rabnay inaan video xaggeena kaga soo gudbano annagoo sooman waxaan rabaa tusaale yar oo xaggeena ku cadeyno yani ma Amazon in alaab laga soo qaado kaliya la soo geliyo eBay ama TikTok ma lacag lagu sameeyaa hadday jawaabihiina ay inta ay isleeyihiin taa oo kaliya dropshipping macnihiisu yahay bal wax yar aan kaga tusin advanced dropshipping waxa loo yaqaan xaggan waxaa ka aragtaan alaabta xagga ku qoran waxaa ku qoran Geico Banker Crunch waxyaabahaas oo kale xaggan waxaa lagu iibiyaa $16.97 okay eBay haddaad eegto waxaa ku arkaysaa in lagu iibinayo waxa loo yaqaano $13.73 okay $13.73 ninka waxa uu ka iibshay 17 su'aasha meesha taal waxay tahay alaabta xaguu ninkan ka soo qaaday bal aan dib u noqono dadka intooda badan waxay barteen Amazon in laga soo qaado la soo geliyo siday free shipping uga faa'iideystaan laakiin ma la socotaa meesha loo yaqaaniyo isna Walmart inuu leeyahay free shipping markuu alaabta iibinayso Walmart alaabtan waxay ka tahay $7.98 haddii aad Walmart ka soo qaadato Amazon ku iibiso is a profit haddii aad also ku iibiso meesha loo yaqaano eBay faa'iidadeed waxa ay tagaysaa iyadana aan haddaad $13.73 aad ku iibiso $7.98 faa'iidadaadana waa $3.68 waxaan rabaa su'aasha inay idin weydiiyo dropshipping ma in alaab meel laga soo qaado meelka la soo geliyaa mise waxa uu u baahan yahay fikir dheeraad su'aasha iyo jawaabtu waa dhankeena maalinta idin ciid wanaagsan